bulshaweynta kala duwan ee ku dhaqan degmada Dhanaano ee hoos timaada gobolka Saraar ayaa cabasho xoogan ka muujiyay maayirka degmada Dhanaano Maxamed Furre. Bulshadan oo warbaahinta kula hadashay isla degmada Dhanaano ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii sida tan: isku soo wada duubo tan iyo muddo 20 sano laga joogo waxa magaalada Dhanaano xukumayay maayir Maxamed Furre, balse waxay ka hadhay degmooyinka dhigooda. magacaygu waa Axmed Saleemaan Ducaale, waxaan ka soo hadlayaa degmada Dhanaano. waxaan ka hadlayaa oo ka dacwoonaynaa maayirka degmada Dhanaano. shacabkan kacsani waxay ka dagaalamayaan maayirka degmada Dhanaano oo ah kaligi talis. dadkani waxa ay ka dagaalamayaan masiirkoodu siiyay isbedel bay doonayaan. ninka maayirka ay dadka wuxuu ku hayaa cunaqabatayn. markii dadku iskaa wuxuu qabsan ku kaceena damiirkoodii qashinkii kadinka ka soo galay cidina ka xaari weynay doraad ee ay bilaabeen. waxaa dhacday inuu ciidamo soo diray oo dagaalameen inamadiisa iyo faamiliyo uu wato. number 1 aniga ninkayga hadalka si curyaanka waa la soo weeraray. burar baa lagu soo weeraray, waa layga qabtay. waxaa lagu yidhi magaalada kama hadli kartid, waxaad ka tahay dabeerteedii Deyraan. dabeeru isagu leeyahay madhaleysada, maayirku leeyahay oo madhaleysada baa lagu sheegay ila mid dhalaysan hadii lagu sheegay Deyraan baad ka tahay kama hadli kartid. mas-uuliyiinta Soomaaliland madaxweyne Muuse Bixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaan Axmed waxaan ka codsanaa si degdeg ah soo fargeeyo arrinta Dhanaano taala oo degmada Dhanaano naga haysta cidhiidhi culus baan haysta. waxaan ka codsanaynaa dawladda iyo madaxweynaha Muuse Bixi, waxaan ka codsanaynaa inuu naga soo gaaro xukunkiisiyaad baan haysta. ninka magaalada u maayirka ah wuxuu ku talagalay afkeenbi qofna juuq lagama yiraahdo inaanu hadalno. waxaanu qabanaa markaan iskaayo wuxuu qabsano ee qashinka iska fiiqno ee wiiska dhiigga iyo xoolaha iska fogeyno. wuxuu idin yiraahdaa madaxnimada xagaa ka keenteen yaa idin yiri wiiska iyo dhiigga gura iyo waraqa. waana la laayay qaarkayo waxay qabaan dhibaato culus bay qabaan. curyaano waxaanu leenahay caamiye, waxaanu leenahay dad indhala, waxaanu leenahay dad ciroola cidinama eegto. hay'adda noo timaada waa la eriyaa, annaku ma erino, waana la ka eriyaa. wax la yiraahdaa annaka ama ayanaka isqorayna oo leh ama waa la eriyaa. waa qodob. dhalinyarada magaalada joogta waa dad wacan oo sharaf leh oo meel wax ku wada cuna, wax isturqin iyo wax iskila toona male. maatadayadu ka daali waxaan haysta. waxaanu ka codsanaynaa haddii aan nala ka soo gaadhin dee taatu ka xun baa dhacaysa. maantana dagaal culus ayaa degmada Dhanaano ka dhacay. waxa weeye Muuse Bixi waxaanu ka codsanaynaa inuu si degdeg ah looga soo gaaro. barasaabka waxaanu ka codsanaynaa barasaab markaan waxna weydiiso hadallada qaarkood aad naga qorto. waxa weeye degmada Dhanaano waxa kaaga timaadaa wax ciidanka aad u geyso, waxa dawladda u faafiso, waxaad meel u dhigto, wax dhaqaale kaaga soo baxay. waa ma jawaab. waxana la ka qaadaa xoolii la ururiyay maxaan idhaahaayay muddada badan ciidanka cadowga naga daafacaya naloo ku ururiyay reer walba laga soo qabtay looma geyn, xeryaha lagu shubto. waa qodobka kale ee meesha yaalla. waxa weeye barasaab wax naga aqbal oo wax naga qor oo waxna weydii oo kaayo cabashada aan ku soo gudbayno wax nooga qabo. waxaanu ka codsanaynaa degmada Dhanaano waxaana haysta ee maamul xumada inay naga qabto. waxa weeye istabaha marka ay rafad soo gasho lacag baa nala ka qaadaa. baabuur iyo dad iyo shicib inta waa laga qaadaa. lacagtoodu kuma timaado soo waxaan ku iman ma waaya kuma timaado. taana wax ka qabaano ku leenahay. maalin walba wax laga soo qaataa kab, maalin walba wax laga soo qaataa lacag, maalin walba wax laga soo qaataa kab, maalin walba wax laga soo qaataa lacag. maxaa laga soo qaadaba taana? waxa weeye saldhigayagu waa dhinacyo go'an yahay, saldhigayagu dushu ka banaan yahay. waxa weeye wax la wax naloo ka qabtay ma jiro. waxaanu ka codsanaynaa barasaab ilaahay ka soko dhulka adaa maamulo oo wax laga weydiiya adiga ciidamadaada hoose iyo dadkaaga waxaan ay bulshada ku nool degmada Dhanaano. waxaan inta raacaa halkan waxaan baxdaa saxaafadda kula wadaagayaa xogta degmada Dhanaano ama dhibaatooyinka ka jira. kuwaasoo haddii aan bayaamiyo waxa weeyaan waxaanu ka cabanaynaa bahda saxaafadda. waxa weeyaan lagu kaliftay inaanu meediyaha tagno oo ka hadallo maayirka degmada Dhanaano Maxamed Axmed Furre, kaasoo waxa weeyaan bulshada ku dhaqan Dhanaano dhibaatooyin fara badan oo kala duwan u geystay. waxa weeyaan naftooda iyo waxa weeyaan mustaqbalkooda iyo magacooda waxa weeyaan ku kala dilay.
يكو وحويا منفع هذا وحويا وقدومي وحويا كلا كان جامع عندك تاجي مركان كلا صاروا magaalada waa degmo weyn oo ballaaran oo beelo badan baa ku nool oo degan baan ku Yunus iyo Ciide iyo Cumar iyo cid waliba way yaalaan waa degmo ballaaran maayir ku xigeen iyo xog hayeelada markaan xaqiiqada dhabta ka sheego waxa maayirka Maxamed Fure maayir ku xigeenna wuxuu isticmaalaa islaantiisa xogayuuna weynankiisa markaan sidaa leeyahay maxay u kalifay waxay u kalifay sida jirta waxa caan ah oo waxa weeyaan cadowde dadku ogyahay waxaan arkay isagoo xogayaha iyo maayir ku xigeen kale waa shaqaalahan soo qortay meesha xukamaha saasay u kaliftay markaa inuu waxa weeyaan maayir ka uu soo ahaado maayir ku xigeen kana waxa weeyaan uu isticmaalo islaantiisa xogayahana uu ka dhigo inankiisa sida wadaynta isaawi markaan inta dhaafo wuxuu ka sameeyay magaalada qabyaalad wax la yiraahdo isku dir bulshada uu kala jeediyo iyadoo uu isugu dhiibo waxa weeyaan colaad soo kursiga 14 sano imika ku haysto inta wuxuu ku haystay wax horumaraya wax qabadaya wax wanaaga uu ka dhaliyay midna ma jirtay wuxuu ku haystay qabiileyn iyo guruubo iyo waxa weeyaan burbur iyo waxa weeyaan isku jajabin dadka isku horkeenay iyo kaga faa'iideysanay ku haystay waxa inta raaco aan halkan ka cadaynayna bulshada dhaana ku noolna waxa weeyaan sidaas dadka loo dulmiyay waxa weeyaan wax halaale wax gacantooda ugu jireexiyo wax naafacaya wax maamulaya wax magacaya wax ka soo gaaratoona aan jirin weey isna dawladna waxa weeyaan waxba ugama gudbiyo ugama soo geeyooda waxa ugu dambeeyay waxaan kugu wari imika jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weey ciidanka qaranka Laascaanood waxa weeyaan xoolihii adduunka loo ururiyay degmada dhaanaynta leh wax uga gudbay ma jiraan ma hubo وكبا غاريبا waxa kalifay sababa ay soo siro gareeyna wasaga waxa inta aan karo cadeynaya manana waa degmo weyn degmooyinka ku yaal Soomaaliland ama kuwa gobolka Saraar kuwa balaarba kamid waloogi yahay baan kugu roo xilligii Siiraanya la doortay kulmiye waxa uu codeeyay 100 qof uu codeeyay kulmiye tii ku xigtay waxaan kugu wari waxaan kale oo halkan ka salaamaya ciidanka waxaan ku Soomaaliland ee aanu ku deganahay ee aanu ku jiifno ee cadaawada nagu soo socota naga horjooga halkan waxaan ka salaamayaa oo kale groupkan faraha badan ee warsaxaafada noo qabtay nimba waxa la yiri bahalkii loo oran jiray habar duqa baa waxa la yiri libaax baa ugu weynaayo libaaxi baa wixii warwaan gawow waan iska jiifsanayaa bisil baan cunaya waarday la gaajadu bilaay qabtaaye 3 iyo 2 cisho markuu jiifay ayuu wuxuu yiri igu yara dawaco gaajan u liitay dawaca waxay tii libaaxow maxaan ka caawiyaa wadigana waa tabcaansan tahay wuxuu yiri waxa iga caawisa sagaara iyo bakayle iyo miyad waxba ii weyday dawaco habar dugaag adigu baan ku aamini jiray waxay tii bisinka bakayle iyo maxaa sheegay sagaaro ah warkii waaweynaa baan kugu keenay way dhaqaaq dameer meel joogay u tagto waar dameerko habar dugaag libaaxi xilka inoo hayay wuu iska bedelay kaalayo xilkii wuxuu yiri cidii doonay daalaa xoog loo xilka noo haynaye dee kaalayo xilka noo qabo wuu qabtay dabeerku soo raacay la waa dabeer raqaf way ka soo yaro horeysay la waa fariida wacadi waxay ku tiri waa kan adigu markaan ku keeno ku dhig markuu sidaa ugu soo foorsaday libaax yiri ayuu sidaa ugu dhig labada dhagood baa go'ay isagoo labadii dhagood dhiigayeen ayuu libaaxi wuxuu cararay dabeer wuxuu yina waa kafkaday way ka daba tagto waxay tii war ninku markuu xil doonayo wax walba waa ku dhacaan bal soo noqo kale ninka waraysan ha tagin hada labadii dhagood baa wulaay wuu soo noqo way ka soo yaro horeyso waxay ku tii baarkii waniga soo celiyay markuu ku yimaado taa qabso war balkaale iyo dadna wii caabiyay oo waxaan ku wuu qabsaday oo wuu cunay oo dhulka u dhigta markay aragtay bahalkii inuu baqtiyay ayay waxay ku tiri war libaax
dee wasladii wax ilaanba waan shaqo tegay waan ku soo shaqeeyey dee wixii soo tu wasladna daayo wasadde xagay taalaa naya waaryaa waarday ilaa anigu tii soo gantaysay baan ahay dee waxaan leeyahay hilibka waxigas waa diiday ilaahi waxay tiri waar bal madaxa aan iska feenfeentay dee ii soo tuur madaxii buu u tuuray oo wuxuu yidhi madaxaa cuno maskaxda ha iga cuno maskaxda ha iga cuno ila waa dawaco waa fariide maskaxdiiba markay cabaar dee hilbii ka guratay ayaa ala ka siisa wuxuu yidhi intuu ku soo jeestay naameeday maskaxdii waxay tidhi haddii maskixi ku jirto bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye waxaan ka hadlaynaa degmada dhanaano haddaanu nahay degmada dhanaano deegaanka degan ee yaalla waxaan sheekh cunaqabatayn ballaadhan ayaana nagu hayaa dina nagu hayo waxaan u cabanaynaa dowladda waxaan sheegay somaliland iyo madaxweynaha musabixi iyo waxaan sheegay badha saabiyada iyo ku-xigeenkiisa iyo ciidamadooda ayaanu u cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa waxa weeye nin baa yidhi baa la yidhi maxaa la yidhahdaa nin habar jeclaha baa wuxuu guri ka dhistay baa la yidhi meesha la yidhaahdo xamar muqdisho ayuu ka dhistay guriga dabeedna wuxuu yidhi baa la yidhi nin maxaa la yidhahdaa reer xamaraas wax walba dhaafo wuxuu yidhahdaa guriga walaxaa ka dhiman war guriga walaxaa ka dhiman waa subaxii walba war guriga walaxaa ka dhiman marka la yidhahdo maxaa sheegay subaxii dama ninkii maxaa la yidhahdaa guriga dhisay injineerkii baa ninka igu yeedha bal guriga walaxda ka dhiman hay sheegeen maalin walba waan hagaajiyahay markuu u yeedhay wuxuu yidhi guriga walaxda ka dhiman waxa weeye cagii hargeysa ku tegi lahaa taayiradii hargeysa ku tegi lahaa baa guriga ka dhiman marka waxa naga dhiman magaalo wanaag dad wanaagsan baanu leeyahay deegaan wacan baanu leeyahay laakiin waxa naga dhiman maayirkii magaalada maxaa sheegay soo saari lahaa baa naga dhiman waxaanu ka codsanaynaa dowladda madaxa bannaan maxaa sheegay somaliland waxaanu ka codsanaynaa in maayirka siba sida ka horeyso si degdegana looga bedelo oo maxaa sheegay looga soo gaaro oo maxaa sheegay aan u helo maxaa la yidhaahdaa bedelkiisii aan u helo ayaanu ka codsanaynaa maxaa la yidhaha intaa waxaan ku daraya maayirka waxaan leeyahay isaga hadal in yaroo kooban baan odhanaya waxaan odhanayaa maayirka dhaydkiisi dhacay oo waqtigii ka dhacay maayirka dhaydkiisi dhacay ee kursiga ku dhegay maayirka dhaydkiisi dhacay kursiga ku dhegay maayirka dhaydkiisi dhacay waqtigii ka dhacay maxaa la yidhahdaa habaari mayne ilaahu ka soo haday baan nutay isaga leena habaari mayne ilaahu ka soo haday waxaan salaamay gobolka caynabo maamulkiisa ee saraar waxaan leeyahay oo ka cabanayaa waxaan joogaa dhanaano waxaan ka cabanayaa maamulka dhanaanood waxaanu kaga cabanaynaa cunaqabatayn aanu ku jiro wax 60kii la soo dhaafay oo maxamed siyaad barrew nagu haysto oo hadlina iyo haddii midda gacalkii isjeclaa ee heelada ahaa ee isku midka ahaa oo isnacsiiyey wax kasta oo soo galo haddii rabiid maayo inankiisa iyo habartiisa iyo walaalkii ku qorayo haddii rabiid maayo ummadii walaala ahayd oo isnacsiiyo midii isugu dhiibay waxaanu ka cabanaynaa haddii rabiid maayo haddii rabiid maayo haddii wax la bixiyo waxaasoo aan gobolkii gaadhayn haddii ay cashuuro tahay iyo haddii adduun la bixiyey tahay oo xoolo la bixiyo haddii rabiidna ciidanka qaranka la siiyey haddii rabiid maayo saldhig taado haddii rabiid maayo kab oo haddii rabiid maayo ay soo qaataan oo aan haddii rabiid maayo gaarigii saldhiggii ka fadhiyo oo haddii rabiid maayo uu ka fadhiyo haddii rabiid maayo uu dunsan yahay oo haddii rabiid maayo uu ka dunsan yahay haddii taayiradii uu kala baxo oo ay seeraftiisii u gashaday wuxuu geliyay daayo kuwii ku jiray uu kala baxay waxaanu gaadhsiinaynaa oo leenahay muuse biixi cabdi waa lagu dhaariyey waxaa lagu dhaariyey dadweynaha somaliland baa lagu dhaariyey somalilandna ka mid baanu marka lagu dhaariye kitaab lagu mariyey somaliland lagu dhaariyey haddii aad dulmido dembiga adaa qaba waxaanu leenahay bedelu dhaar baad muuse biixi oo qabtaa waa lagu dhaariyey kitaab baa lagu mariyey wax lagu dhaariyey dadkaaga inaad isku mid u shaqaynayso 14 sano haystay 14 sano waxa la wuxuu dhaanoo qabtay ma jirto wuxuu ka dhiciyay mooyaan waa ninka yiri haddii rabiid maayo waxbarashada haddii rabiid maayo yiri qof aqoon leh loogama baahna dhanaano inay waxbarashada iskuulada joojin kare uu joojin lahaa haddii waa haddii rabiid maayo aqoonta u badkiisa meel dhulka kale aqoonta leh qabatistaa wuxuu yiraahdaa haddii rabiid maayo dad juulaan wuxuu soo barta buu yiraahdaa waxa weeyaan haddii rabiid maayo dadka uu kale waxay waxay adigu reer bal baato laajibaad ka tahay adiguna laajibaad ka adiguna laajibaad ka tahay wuxuu maraya hadda inuu gudihiisa garaaco waxaanu doonaynaa muuse biixi cabdow bedelu inaga bedel dad wuu fara badan yahay wax ku ixtiraami mayso waxna ku haysan mayso bedelu baanu leenahay bedelu naga bedel maayirka iyo maayirka saddexda maamulka baa naga bedel maamul cusub oo shafeecsanayo oo muslina oo ilaahay garanaya noo bedel madow kale maamulku meertaha noqdo wax baa 19 sano iska haysanaya